ورسافة قبل كسنة محمد علي سليمان أيوه هي ورسافة حيانك قبل كسنة سدوياش لاميس الدولة ضيّت ليها قيمة البوليس قبل كسنة هي تضبط كان هرانتيسي كورمير شقة كوسو مريض دجانا سنة أمريكا ترسن وحي ورسافة يوفتي سنة كل كي أي قارين طولة ضدوك وقياستي 40 كيلومتر شهادة بريكة هي كتمجال عيرجا وكلهم قضية يشين برشة هالكاس كودقن وحنا برشة طولة ضدوك وفتي وقح ورمين باهيات كودا نلاش أساسي جاي طولة ضد الدجان ككوح عرب بتاص أي شيئين إننا هاي وحكوا وعاف ما تسلقي بوليس بيو يوحي لمبدا يوليبا إنay tahay markii ugu horeysay ee waqtigan noocan oo kala ahi dagaalkooda soo gaaro waxana hadalladii kamid ahaa daan nahay degmada dhoob mahad ilaah baaleeh maanta ka horumaana arag inta oo madax ay isbaanu ka naqaana madaxda gobolka cid kale aanu ka naqaano maana caafimaad oo cabanina lama caafimaadka leeyihiin aqal caafimaad hadii qof naga xanuunsado waxaanu qabanaa gobolkan uga yeeranaa gaadiidka jooga qofkii inta dhakhtar ku geey lahayn gaadiidka ayaa naga qaatay biyuhu waxaanu leenahay wax weel biyooda barkada yar halkaas waxa oo dhan baanu ka cabanaynaa dawladdu waxaan arki jiray iyadoo dadka dhex ogaata laba wixii lagu qabto male maana taana gobolkaan ka cabanay waxaanu mahad celinaya oo manuga mahad celinaya madaxweynaha Soomaaliya Axmed Maxamed Maxamuud nabadgelyada maanta dalka Soomaaliland ku nooshahay taas ay ilaahay mahadiya nin waliba uu seexanayo geedka hoostiisa kana soo toosay warasaabka gobolka Sanaag ayaa isaguna hadal kooban oo bulshada ku dhaqan tuulada dhoob halkaas uga soo jeediyay waxa hadaladiisa kamid ahaa socdaalkayga wuxuu ahaa kurgalida xaqiiqada dhabta ah ee ka jirta deegaanadan khaasatan inaanu kormeerno siday u hirgashay hawshii la dagaalanka xaalufinta waxa kalaanayna u soconaa inaanu wacyi gelino dadka waxa bilaabmaya diiwaangelinta magaaladu waxay ku heli kartaa caafimaadkay doonayso dhakhtarka iskuulka iyo populationkeeda lagu ogaanaya inta qof ay iska diiwaangelisa markaa kaararka qaadataan iyaduna dhaqso ayay bilaabmaysaa labadan wiig soo socda waa la idin iman doonaa in dadku qaataan dhalashada iyo deegaanka ay degan yihiin ay kaarkooda ka qaataan oo la idinku iman doono waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa soo dhaweyntaana soo dhaweyseen reer Roobow haddii hore ugu jirteena maanta faraha ka qaada dhuxusha la iska daayo dhirta la badbaadiyo gawaadhida lagu qabtayay soo caban sidoo kale barasaabkan iyo wafdigiisu waxay meelo deegaanka dhoob ah kula kulmeen cusub ka tirsan ciidamada qaranka oo ku guda jira howlgalka la dagaalanka xaalufinta iyo dhuxusha intaasi kadibna wafdigani waxay hore u sii wateen socdaalkoodii shaqo iyagoo u sii kicitimay dhinaca deegaanka Carmaale Cabdullaahi Xuseen Darwiish shabakada caalamiga Odweyne News magaalada Ceerigaabo